الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshooyinka reer Somaliland meel kasta oo ay ka joogaan adduunka. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan kaloo iyaguna si gaar ah u salaamayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga UCID iyaguna meel walba adduunka ka joogaan iyagana salaan gaar ah u dirayaa. maanta ay bishu tahay 15 July maalin Jimcaha baa anigoo sidaad la socotaan baa xogayaha xisbiga xogayaha saxaafadda xisbiga UCID dalka UK iyo Cabdulqaadir oo isna gudoomiyihii xisbiga UCID ee Bristol ayaan waxaan jecelahay inaan ka yar hadalno bal ayaa wixii ugu dambeeyay siyaasadda Somaliland iyo inaanu bal wacyi gelino taageerayaashii xisbiga UCID bal maanta halka uu marayo xisbigii iyo amurihiisa inaanu bal ka yar hadalno baan jecelahay. waxaan jecelahay inaan anigu ka hadlo 6 qodob oo kooban oo quseeya xaaladda xisbiga UCID iyo waxa weeye maanta xaaladda halka marayo waayo waa xaqna saaran maadaama aan mas'uuliyiinta xisbiga nahay in aanu bal dadkii brief gareyno bal maanta halka uu marayo in dadku si markaa moralka dadku sare ugu soo kaco si aad la socotaanba xisbiga waxaa ku yimid khilaaf siyaasadeed. khilaafkaasi wuxuu keenay in xisbigii dhaawac ku yimaado heerkii uu taagnaa markii horena hoos uga dhaco. waynu isla fahmaynaa cidda halkaa ama miqaamka aad u hooseeya xisbiga geysay. waa arkaysaan maanta laba xisbi un baa la hadal hayaa dadku marka siyaasadda Somaliland laga hadlayo maanta xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani maanta labadaa un baa la hadal hayaa. xisbigii UCID waxaan moodaa arrintiisu in aad uu rajixun yahay. arrintiisa la leeyahay maxkamad bay ku jirtaa guddiday hortaallaa. waxa halkaa dhigay halkaa ka dhigay xisbigii mustawaha gaarsiiyey heer dee dadku ayba laga saaraba 3 xisbi oo down noqdo. waxaa weeye dee waynu garanaynaa waa hoggaankiiba maanta halkaa dhigay xisbiga. laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii UCIDnimadu ka dhabahayd in ay rajo jabin in aynan quusan in xisbigu waxaa weeye insha Allah soo noqon doono sharaftiisii iyo qaybkiisiina la soo noqon doono saaxadda siyaasadeedna soo gali doono. sidaad la socotaanba iminka wuxuu ku jiraa dacwad hortaalla guddida diiwaangelinta siyaasadda. waxaan guddida diiwaangelinta siyaasadda ugu baaqaynaa in ay dedejiyaan go'aanka waxaa weeye dacwadda. waa muhiim in lagu dhawaaqo natiijada. waanu fahmaynaa waxaad moodaa in aad arrintaa loo jiiday in aad waxaa weeye aan loogu dhawaaqin waqtigii loo baahnaa. waxaanu ognahay ninkii xisbiga burburintiisa iyo qaskiisa iyo baabi'intiisa u mas'uulka ahaa oo ninka maanta sheeganaya guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe inuu tallaabooyinkii hore oo xisbiga ku burburinayay haddana qaar kale sii wado inuu waxaa weeye kii uu sinaadaba kaasi uu ka fikir duwan yahay uu yiraahdo waan eriyay. waxaa wanaagsan intii waxaasi aysan sii socon in arrinta xisbiga UCID degdeg loogu dhawaaqo. waa xil saaran guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ayagii ahayd inay ku kontroolaan xisbiyada waxaa weeye inay dimuqraadiyadda ku kontroolaan. waan la soconnaa dee waxanba wada dee qaskan wada hawshan wada in dee ay qayb ka tahay dowladdu xisbiga talada haya kulmiye inuu qayb ka yahay. in maanta ninkii waxaa weeye aasaasihii xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe maanta waxa weeye sharaf iyo qiyam ka tagi lahaa
وحاول ما هدو لبش شير ورد عيمانت وبهنت لو سووا روش يقول يروح أنا قلت لبش شير بعند عيب ما تني كان اللي يردا من كوري تشينيا إنه مير لما صور لما كعليو وحاول دبدم ببستاو سوقاته waxaasi waxaan ognahay in dawladdu ka dambayso oo xisbiga talada hay ka dambayso iyadoo marka kale hawlo kale iyo shaqoola kale oo adigu waxa weey lagu dhaawacay xisbiga cid kale taa anu halkaas aan jeclaa in arinta xisbiga uga gudbo gudoomiyaha Faysal Cali Waraabana wax talaan u jeedinaya waxaan leeyahay Faysal oo qaabkan aad iminka u socotaa wada is arkaysa waxaad wanaagsan inaad qiimayso maalintii dhaweyd shalay mooyad daraad waxaad joogtay sanaag gobolka sanaag waxa la soo sawiray adigoo laba inanoo calan kulmiyaasta ay ku ag taagan yihiin shalay waxa weeye markii aad xisbigu waa isku duubnaayeen midka ahaa waa la ogaa taageerada aynu ku lahayn gobolka sanaag waa la ogaa taageerada aynu ku lahayn Ceergaabo maanta inay laba inanoo calan kulmiyaasta ku ag joogaan haddaad ku faraxsan tahay adigu halkaas ay qiyamkaaga ay ama damiirkaagu halkaa ku gaarsiinayo inaad mustawi noocaas aad joogto ya oo afar inanoo kulmiyaha ku soo dhaweeyaan oo dadkii u cidna ay ka cararaan adiga waxaad wanaagsan inaad Faysalow inaad dib isku qiimeyso oo aad qaatumadaada aad dib u eegto oo qofku waxa weeye waa khaldami karaa laakiin khaladka aad maanta ku dhex jirto inaad dib uga noqoto ayaan Faysal Cali Waraabo kula talinayaa waxa weeye xisbiga u cid inaad u burburiso Cabdiraxmaan Ciraan xaasidaya Cabdiraxmaan Ciraan loo qabanaya war waxaasi sharaf dhacun baad ka helaysaa waxa weeye inaga u cid baa wax noqon karna inaga ayaa waxa weeye kursiga madaxweynaha tagi karna inaga ayaa dalka hogaamin karna war maxaa adiga hamigii iyo qamigii ka qaaday maxaa nin kale oo xisbi mucaarad haysta لقبان قب محا عبد الرحمن عرر لقبت إذا عبد الرحمن عرر لقتكو قبو برنامج سياسات وأنا كلو حسب كلوته حسب جاي دس حسب جاي برنامج شوية كديمنا ضد كهانو لكن محاول كلميا تبع عرريا يا موسى تبع عرريا سي عبد الرحمن عرر لقت لقبته وهشيس كي أن وضع قلي إنك أقويها كي قرب كيس جماعة عرفين لك الشيء بان بابينا يا أرنتاسي فيصلوا وأرن تاريخ حمو مبدي سياسات كقلني يسوي فيوتشر كاغا وانا الاركي دونتا waxa weey waana la arki doona arinta Faysal Cali Waraabo maanta waxa uu sameeynayo iyo ceebta uu maanta ku kacay isagoo berrito waxa weey abortions ka bixinayo waayo waxa loo soo joogay taariyaale kaahin oo waqtigii udub isaguna sidaas oo kala sameeyay oo Jamaal Cali Xuseen markaas laha xisbiga udub dhis ka raacay waxa weey warcadde muddo sanada ka bacdi waa kii daariyaale apologies waxa weey bixinayay Jamaal Cali Xuseen ka siinay apologies godobtii uu bariga galay iyo khaladkii uu sameeyay Faysal waxa loo joogi doonaa waa ninkii noolba waa arki doonaa ceebta iyo godobta iyo waxa uu maanta wado isagoo berrito waxa weey ka shalaayay oo ka garaabaya waxa khaladkii uu sameeyay haduusan ka noqon oo xisbigiisii dib ugu soo noqon waxa weey xisbigaagii Faysal oo ku soo noqon waxay inamadan yareeday kulmiye aad marba mid meel u magacaabaysa leen hebel baan u magacaabay war waxaas niman dadkan waa dad wada kulmiya dad mabaadiida xisbiga u cid aaminsanba maaha dadkii xisbiga u cid soo saaray ee mabaadiida xisbiga u cid soo saaray u soo noqo taasaan ku walaal waa hadaad qaatumo doonayso inaad waxa weey qaatumo wanaagsan xisbiga kaga tagto taageerayaasha xisbiga u cid waxaan leeyahay haniyad shabina هكونية جبنا وحاوي مانتا هجان حمادا إنه قد عضي هكونية جبنا مانتا وحاوي شرقولك لوسو أديك سدي قدومي هيك هكونية جبنا أرنتي وحاوي وحنرجيني إني قول صوب حظو إن وحاوي حق لغد واقو وحاوي هولوين باينوت الله وحينوت الله إنه نحس بيجيني ديبو بسنو وحينوت الله إنه نحس بيجيني بورك ديبو قد شفنو hawshaasoo dhan baa ina sugaysa aynu isku duubnaano xisbigu cid reerna maaha qabiilna ma waa la ogyahay maanta xisbiyada kale ee durbaano reer baa laga tumaya laakiin inagu u cid waxaynu dad isu yimi oo lixda gobol ee Soomaaliland ka kooban waxay naga dhabahaa in systemka Soomaaliland wax laga bedelo dadkii nooc ahaa waxaan leeyahay war haniyad jabina war qaskan iyo ceebtan maanta Faysal Cali Waraabo wado isagay berrito fuuli doontaay idinku haniyad jabina insha Allah inuu guuleysan doona xisbigii iyo sharaftii qiimkiina way noo soo noqon doonaan
halkaa markaan kaga gudbo arrinta xisbiga u cid waxaan doonayaa inaan u gudbo arrimo kale oo iyaguna xasaasi oo ayaamahan taagnaa waxaa ka mid ah heshiiska dekadda berbera ee shirkadda imaaraadku la gashay xukuumadda Soomaaliya runtii wixii horumar ah waa soo dhaweynaynaa waa loo baahan yahay shirkadka caalamka in Soomaaliland lagu soo xiro waa loo baahan yahay in la maal gashto oo maalgelin la sameeyo waa arrin inaga caawin karta ictiraafkeena waa arrin inaga caawin karta xagga dhaqaalaha waa arrin inaga caawin karta xagga horumarka waxaas oo dhan waa loo baahan yahay waa soo dhaweynaynaa laakiin mushkiladdu waxa weeye xukuumadda maanta talada haysa ee Axmed Maxamuud Silaayo ma tahay xukuumad wixii horumar ah ama investment-ga dalka la gelinayo xukuumad ay ka daacad tahay in dalka ay horumarayso xukuumad waxa weeye kartideedii iyo capacity-geedii leh meelaha deegaanada wax laga fulinayo inay ka dhaadhiciso waxaan inay dan ugu jiraan aniga waxay la tahay shakhsiyan ma yahay ma aha xukuumadani xukuumad capacity leh ma aha xukuumad ka daacad ah in dalka horumar la geliyo tusaalaan idin siinaya shirkadaha ugu waaweyn ee dalka yimi waxaa ka mid ahaa shirkadda energy la oran jiray shidaalka baari jirtay energy saala xasuustaan shirkadaasi lacag badan baa laga qaatay oo dawladdan xukuumadda Silaayo ka qaadato xaqul qalin way timi qalabkii bay kaysatay alaab bay kaysatay shidaal baan baaraynaa bay shirkadaasi waxay deegaanada wax ka bilaabday waxa ahaa deegaanadan madaxweyne Silaayo beeshiisu deganta deegaanka adigu Caynabay intaasi ahayd waxaa dhacday dadkii deegaanka reer Caynabay shirkadii energy isku dhacaan in shirkadii la xabadeeyo in qas dhaco in waraaqa loo qoro in shirkadii sidii ku tagto su'aal baan markaa dadka reer Soomaaliland idin weydiinay dadka deegaanka Caynaba ku nool oo waliba ah deegaankii madaxweyne Silaayo ka soo jeeday ma waxaynu oran karnaa waxay ka soo horjeedaan horumarka dalka may ka soo horjeedaan waxaan ognahay dadka deegaanka ku nool 99% inay dawladda taageersan yihiin inuu yahay deegaankii madaxweyne u dhashay laakiin maxay shirkadda energy kula dagaalameen maxay u eriyeen maxay u rasaaseen waxay ahayd maamul xumo xagga dawladda ka timid maamul xumo xagga dawladda ka timid waxaa dhacday in waxa weeye madaxtooyadu intay waxa weeye si foolxun u maamushay waxa weeye shidaal baaristii in dadkii deegaanka ku noolaa deegaanka Caynaba ku noolaa in shirkado iyo kambaniyo inta la geliyay waxa weeye dhulkii ay xoolo daaqoonkoodii gam laga dhigay dhacgafiye la geliyay wax walba la jiiray markaas haddana shaqaalihii iyo waxa weeye dhaqaalihii meesha lagu isticmaalayaan waxba laga siin waxa inay khayr iyo sharaf waxaan ku soo wareejinayaa gudoomiyaha xisbiga u cid ee Bristol ku soo dhawaad الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعده عبد القادر باه الله يوتها كحبا ويموها بينبا مeel wala isla wax ka tagaadna uu qaad runtii dalkuna baylaha badan baa ka muuqda oo runtii u baahan in wax laga qabto waxaana ugu weyn xisbiga sidan uu sheegay aanu xisbiga dhexdiisa aanu dimuqraadi aanu ka ahayn oo dadku ay hadda diiwaangelintu waxay dadku u soo bixi waayeen ay u arkaan xisbi ay u codeeyaan inaanu jirin maadaama nahay madaxda xisbiga u cid waxaana loo soo adeegsaday gudoomiyahaygii baana burburiyey horumarkii aanu gaadhi lahayn iyo isbedelkii uu xisbiga ku tallaabsanayay oo ahaa saddexda xisbi ka ugu tunka rool leh in uu magaranaysaa in hisaab ku dhacay uu hoos u dhacay xisbigii ayaa halkaa ka muuqda loona soo adeegsaday Faysal Cali Waraabe oo markuu barigii hore khudbadayn jiray khudbadiisa aad loo jeclaa markuu Jamaal Yimina xisbigiina hawada uu sii maray oo ku sheekayn jiray inuu yahay nin garanaysa horumarka jecel xisbigii inuu wareejinayo dhalinyaro inuu keenay isagoo rol modelkiisu Umar ibn Khadaab yahay oo ah in magaranaysa wax la hormariyo sheeka maalin gootaan dhageysanay Xajaaj ibn Yuusuf ayaa waxaa nin aad u xaasidnimadu aad ugu cambaxay kadibna madaxweynihiisii buu la kulmay Cabdimalik bin Marwan Cabdimalik baa ku yiri nin waliba ceebtiisa uu yaqaan intiisa yare Xajaajow intaada waa maxay wuxuu in yar baan xaasidnimo la yeemin qofka magaranaysa igu soo xiga ku xigeenkaya ayaan ka baqaan magaranaysa in aniga soo gaadho saan uga takhalusi lahaa oo baan magaranaysa filweyn qabto markaas uu yiri hadaa ninkaad rol modelkaaga ama ninkaad ku dayataa waa iblis wiil aduu jawaab waxaan Umar waxaan oranayaa Faysal Umar ibn Khattab ma rol modelkaaga ma garanaysa
كي إبليس أورن ما إبليس بس كطيته كي إبليس بيجي كي أصحاب عمر بن الخطاب وما يكا حتى كان هذا عن هامها وحن يوم كرنس تكذب البرة نلقوا يلو من شنو قبي شنو بوحي وحلا قريو قولوا بقى كل شيء مسق الداف سيد قرنت يدي عندها لسه قبل سومال واحد كذا نين هلاب حبي إنه حكر سنة يوم مودا تكذب أن ما كان يوصل بديان وشركة وين طلبات وباهي لكن dadka deegaanka ha ugu yeedhaan oo makarasa mutacalimiinta ha loo yeedho oo culimada ha loo yeedho oo dadka wax ka go'aan ha loo yeedho oo hal la falaqeeyo oo dawladdu halka ha ka istaagto marka la isla garto mashruucan inuu fiican yahayna baarlamaanka loo gudbiyo Soomaaliland oo israacsan ha qaadato haddii kalena ha laga tago laakiin istan dulle dad baa lacag la siinaya oo ku macaasha taageera dawladda lacagteeda in la berber istaagaysa dadka ku qasbayso inay taageerto dadku way ka didayaan sababtoo waxay soo oranayaan maxaa dee jira marka hadalka intiisii badnaa waxa qaatay magaranaysa gudoomiyaha intaasan ku soo gabagabaynaya insha Allah Soomaaliland guul weyn baan u filaya waxaan ka codsan lahaa nimanka ururada aynu ciyaal u haysto madaxda u yahay inay soo dedejiyaan wax hadduu muddadiisa uu sii dheeraato oo waqti uu sii dheeraado khalkhal badan baa ku yimaada wuu isbedela sababtoo ilaahay baa quraanka wax ku sheegay ummaduhu hadaagay fadaal calayhim alcahd billahi waqtigii baa ku dheeraaday markuu dheeraadin waxyaalo badan bay la yimaadeen marka go'aan maalin iyo 2 iyo 3 qaadan kara in 2 bilood iyo 3 bilood iyo 4 bilood la geliyo badmado badan baa iman kara khalkhal badan baa ku iman kara ilaahay ka boqo soo dedejiyo baan oran lahaa si aad ku aragtaan in xukuma laakiin soo dedejiyo xayntan aad haystaan aad marba dawladda leedahay ma ku sii darnaa bil musoo ka deena ilaahay baa laga baqay ilaahay ka boqo go'aanka markiiba soo daayay sidii hay'adahan kale ku shaqulka lahaa loo sii gaarsiin lahaa aad iyo aadna waadi salaam iyo assalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم maanta halkan waxaan isugu nimay inaan shir jireed ku qabano arrimo badan oo maanta dalka ka socda arrimahaas oo ka mid yihiin arrintan dekada berbera ee dawladdu dabada ka wado oo aan u aragno inay arrintaas si khaldan ee dawladdu wado ta kale waxaan ka hadlaynaa arrimo kale oo ka mid tahay arrinkan muddo kordhiska iyo khilaafka xisbiga wicid oo aan u aragno in dawladda أحمد محمد سينايو أي سخ دبلا كواتو إنجنير فيصل على ورابه marka anigu qodobada badankoodu waxa ka hadlay عبد القادر oo isagoo ah xogayaha xiriirka dadweynaha marka anigu waxaan ahay xogayaha magaalada Bristol ee xisbiga wicid anigu waxaan doonayaa xogaa inaan bulshada u iftiimiyo arrinkan dekada berbera oo runtii anagu aan u aragno inay dawladdu si khaldan ay arrinkan u wado shacabka reer Soomaaliland waxay aad uga dharagsan yihiin in 16 milyan ay soo qaaday xukuumadda Siinaayo ee tiri xaqooqan baa ku soo qaaday in 16 milyan ay dawladdu tiri waxa ku ridnay qasnada dawladda laakiin shacabka uma soo bandhigin lacagtan waxay ahayd lacag ay rag carab ay xaqooqan ku bixiyeen laakiin mashaariicdii lagu qaban lahaa dawladdu waxba kama sheegin dawladdu waxay tiraan qasnadii dawladdu ba ku shubnaa marka arrinkaas waxa fair soo marka ugu horeysa looga baahan yahay in deegaankan laga hirgelinayo mashaariicda ee gobolka Saaxil ay dawladdu mashaariic horumarineed ka samayso waxaad aragtay deegaankan imika lagu soo qaatay 16 milyan isbitaalkii magaalada Berbera waxaad aragtay in maqanaas ay u baahan yihiin dadka ay cabasho badan ka muujinayaan bulshada ku nool gobolka Saaxil ee wixii xaq u leeyihiin shacbiga reer Soomaaliland يعني أمقن دولة كلمية شعب غير سوماليلاند وحي صح ولا تاجرة أو عدالة ولا تاجرة ويا تذكر هير صح حق بيقولين إن نحية 8 مليون حكومة السيناء سوقاتي بنك كشباتي إن مشاريع هرمانات وغسمية إن السبتال كوجو هرمانية إن مقالة سقيبته وحبرشة كوبك صاحي وجو هرمانية وحيالها صار وحيالها أي دولته كجبانيسو waxaana arrintii u dubaysaa arrin heereed in dad beesha dadka ku nool gobolka Saaxil ay ka soo horjeedaan horumarka dalka arrintan waxaan u arkaa in rag tuugo wax qarsanaya ay doonayaan inay dad kale ay xambaareeyaan oo ay maqalada dusha ka saaraan in hada heerbada ka dii qaranka ka soo horjeeda waxaan oran lahaa dadka aqoonyahanka dalka jooga ee reer Saaxil in doodiinu iyaguna ay noqoto dood la akhrisan karo oo ah wixii xaq u leedin ka hadashaan
oo ay ka mid tahay in mashaariicda aad rabtaan aad soo qorataan dawladdana soo bandhigtaan si 16 milyan la soo qaatay la siinaayay mar 16 milyan shacbiga reer Somaliland baale aad qaybtiini aad uga qaadataan gobolada kale ee ka mid yihiin Somaliland de xaq bay u leeyihiin waayo waxa weeyaan 16 milyan la soo qaaday madaxweyne siinaayo wuxuu ku soo baxay cod shacab marka waxa weeyaan 16 milyan in goboladu macalliftuga mashaariic lagu horumariyo weeyaan madaxweyne siinaayo maxaad ku qabanaysaa 16 milyan waa inaad bulshada u cadaysaa ila waxa weeyaan ma aha Suudaan meel fadhiyo matid madaxweyne qaran baa tahay waa in la cadeeyo mashaariicda ka lagu qabtay kale waxa weeyaan marka doonaysid meel mashaariic madaxweyne laga sameeyo waxa loo daraa ma qaranaysaa dad iibin kara oo deegaanka ka dhaadhicin kara meesha mashaariicda laga sameeyo ma aha in madaxweyne inaan asada go tahay intuu 16 milyan oo kula heshiiyo uu ma suguna uu doonayo in dadkii deegaanka ka dhaadhiciyo waxyaalahaas dawladnimada ma sharaf dhac bay ku tahay marka waxa weeye arrinka madaxweyne waa in ma qaranaysaa dad wax iibin kara alla keena meesha dadka saaxiibna waxaan ku leeyahay wixii xaq uga leeyihiin cidna ha ugu joojinina xaq baad ugu leeyihiin magaca dekada berbera wixii lagu soo qaaday in gobolka saaxil lagu hormariyo xaq baad u leeyihiin doodo badan arrinkan waa ka yeelan doona hadduu ilahay idmo waxa weeyaan Somaliland cid gooni ah ma laha Somaliland waa wax la wada leeyahay madaxweyne Siilay maanta adiga ayaa ugu badsaday Somaliland 5 sano shacbiga ku doorteen mandate dadku ku doorteen 5 sano way ka dhamaatay 2 sano ugu daray oo xaraana ku qaadatay ima kana shacbiga iyo dadka reer Somaliland midna laga yeeli maayo in 2 sano dambe ay soo qaadatid anigu aqoonyahankii baan nahay gobolka saaxil waxa weeyaan haddii sharciga wixii la dhigtay ee ma qaranaysa ahayd shuruucdii dalkana lagu dhaqmayana oo dawladnimadeeni halka ku wadanana de waa shuruucdii dalka iyo dastuurkeena aan ku dhaqano hadduu laakiinse arrinku yahay tafaatooro iyo ma qaranaysa tuuganimana waxa weeyaan qofka sabab deegaankiisa u taranaya anagu taasan ka hadlaynaa taasan u turjumaynaa shacbiga reer Somaliland in wixii wada dhiganaa ilaashano taasan ugu turjumaynaa gobolada aan ka soo jeedno ayaan ugu turjumaynaa waxaan kale leeyahay aan hadalkayga ugu dambaysiinaya maanta cadaaladda reer Somaliland waxay hortaala xisbiga aan ka mid nahay cidda baabiinaysa ee dabada ka wada wax xukuumadda taana waxaan qabaa cidda ugu horeysay ku gubanaysaana inuu xisbiga kulmiye uu noqon doono cadaaladda reer Somaliland waxa weeye dadka shacbiga reer Somaliland waa in cadaaladda loo hiiliyaa waxa weeyaan heshiis baa la galay oo Jamaal Xuseen la galay Faysal Cali Waraabe waad aragtaan maanta sidii heshiiskii loo jabiyay cadaaladda maanta ka soo bixi doonto gudida ku dhawaaqi doonto ee loo dhiibay karta haddii ay cadaalad darro ku dhawaaqdo waxa noqonaysa burburka ugu horeeya ee Somaliland ma aha arrin aan si sahlan ku ori laakiinse waxa weeyaan dadka reer Somaliland inaanay arrinta aanay qabyaalad u eegin ma aha laakiinse cadaaladda in loo hiiliyo weeyaan waa waxa ma qaranaysaa aan ku wada badbaadayno intaasaan kusoo gabagabeynayaa doodahayguna way socon doonaa hadduu ilahay idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.